Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kula wacan wanaagsan saaxiibadeena ku xiran barteena YouTube-ka ee Gacmo Gaab Tube. Soo dhawaada. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay maadaama uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, waxaynu eegaynaa kooxaha loo yaqaano Big Six-ka ama 6da koox ee ugu sareysa horyaalka Premier League. Ciyaartooyda ay soo iibsadeen iyo kuwii ka tagay ayaa muuqaalkeenan aan idinkugu soo gudbin doonaa. Saaxiibayaal, haddaad nagu cusub tihiin subscribe inoo saara channelka, sidoo kale muuqaalka like saara oo share gareeya saaxiibadiina. Haddaynu ku bilaabno xarafka A oo ah kooxda Arsenal waxaa ka tagay Mohamed Elneny kaas oo ku biiray kooxda Al Jazeera, wuxuuna ugu tagay qaab free ah. Smith Rowe ayaa ka mid ah ragga ka tagay kooxdan, wuxuuna ku biiray Fulham, wuxuuna ugu biiray 34 milyan. Nuno Tavares ayaa ka mid ah ciyaartooyda ka tagtay kooxdan, wuxuuna ku biiray kooxda Lazio qaab amaah. Sidoo kale waxaa ka tagay Alberto Zambia Lokonko kaas oo ku biiray kooxda Sevilla, wuxuuna ugu biiray qaab amaah. Kooxdan waxaa yimid Ricardo Calafiori kaas oo ka yimid kooxda Bologna, wuxuuna ugu soo wareegay 42 milyan. Markaan Chelsea eegnana, Chelsea waxaa yimid ciyaaraanka loo yaqaano Hall oo ka yimid kooxda Leicester City, wuxuuna ugu yimid qiimo gaaraya 30 milyan. Sidoo kale waxaa kooxdan ku soo biiray Pedro Neto oo ka yimid kooxda Wolves, wuxuuna ugu soo biiray 54 milyan. Markii la fiiriyo kooxdan ciyaartooyda ka tagtay waxaa ka mid ah Hakim Ziyech oo ku biiray kooxda Galatasaray. Sidoo kale waxaa ka tagay Lan Maatsen oo ku biiray kooxda Aston Villa, waxayna ku iibsadeen 37.5 milyan. Lewis Hall ayaa ka mid ah oo ka tagay kooxdan, wuxuuna ku biiray kooxda Newcastle, wuxuuna ugu wareegay 28 milyan. Thiago Silva ayaa ka mid ah daaficii way arag u ahaa kooxdan, kaasi oo isaga tagay kooxdan, wuxuuna qaab free ah ugu biiray kooxda wadankiisa ee Fluminense. Malak Sarr oo ah daafac daayar fursadna u heli weysa kooxdan inay ciyaartiiso ayaa ka mid ah ciyaartooyda isaga tagtay, wuxuuna ku biiray kooxda wadankiisa ee Lens loo yaqaano, isagoona ugu biiray qaab free ah. Liverpool markii aan eegnana, Liverpool wax ciyaaryahan oo yimid ma jiro, balse waxaa ka tagay kooxdan ciyaartooy uu ka mid yahay Thiago Alcantara kaasi oo ciyaaraha isaga fadhiistay. Sidoo kale Fabio Carvalho ayaa ka mid ah ciyaartooyda kooxdan ka tagtay, wuxuuna ku biiray kooxda Brentford, isagoona ay ku iibsatay 27 milyan. Sidoo kale ciyaartooyda ka tagtay waxaa ka mid ah Joy Matip, waxaa kaloo kooxdan isaga tagay Adrian Golahyi da'da ahaa kaas oo ku biiray kooxda Real Betis ee dalka Spain. Manchester City markaan nimaanana, Manchester City waxaa ku soo biiray Savio kaas oo ka yimid kooxda Troyes ee dalka Faransiiska, wuxuuna ku yimid 33.6 milyan. Kooxdan waxaa ka tagay Julian Alvarez kaas oo ku biiray kooxda Atletico Madrid, kaas oo ku biiray ama ugu biiray 82 milyan. Kooxda Manchester United markaan nimaanana, kooxdan waxaa yimid Leny Yoro kaas oo ka yimid kooxda Lille, wuxuuna ugu soo biiray 58.9 milyan. Sidoo kale ciyaartooyda soo biirtay waxaa ka mid ah Joshua Zirkzee mid leeyahay kaas oo ka yimid kooxda Bologna, wuxuuna ugu soo biiray 36.5 milyan. Waxaa ka mid ah ciyaartooyda kooxdan ku soo biirtay Maitland Niles oo isagana ka yimid kooxda Bayern Munich, waxayna ku soo iibsadeen qiimo gaaraya 42.7 milyan. Sidoo kale waxaa ka mid ah Nousrian Masrowa mid leeyahay kaasi oo ka biiray ama ugu soo biiray kooxda Bayern Munich, wuxuuna ugu yimid 17 milyan. Kooxda waxaa ka tagay Mason Greenwood kaas oo ku biiray kooxda Marseille ee dalka Faransiiska, wuxuuna ugu biiray qiimo gaaraya 26.6 milyan. Danny van de Beek oo kooxdan fursad inuu helo amba uu ciyaari waayay ayaa isagana ku biiray kooxda Girona, wuxuuna ugu biiray 7.6 milyan. Sidoo kale waxaa ka tagay Aaron Wan-Bissaka daaficii u ciyaaraya qaybta midig ee dambeedka, kaas oo ku biiray kooxda West Ham, wuxuuna ay ku iibsadeen 15 milyan. Markaan u imaanno kooxda ugu dambeysa Tottenham Hotspur waxaa yimid Timo Werner kaas oo ka yimid kooxda RB Leipzig qaab amaah ah. Dominic Solanke ayaa isagana ku soo biiray kooxdan oo kaga yimid kooxda Bournemouth, waxayna ku soo iibsadeen 65 milyan.
Lucas Brevol ciyaaryahan la leeyahay ayaa sidoo kale kusoo biiray kooxdan waxayna kusoo iibsadeen 8.5 milyan. kooxdan waxaa isaga tagay Emerson Royal kaas oo ku biiray kooxda AC Milan waxayna ku iibsatay qiimo gaaraya 12.8 milyan. Eric Dyer ayaa isagana ka tagay kooxdan wuxuuna ku biiray Bayern Munich qiimo gaaraya 3 milyan. Ryan Sessegnon ayaa isagana ku biiray qaab free ah kooxda Fulham. Hojbjerg sidoo kale kamid ciyaartooyda ka tagay kooxdan wuxuuna ku biiray kooxda Marseille qaab amaah. Ivan Barisic ayaa kamid ciyaartooyda kooxdan isaga tagtay wuxuuna ku biiray kooxda wadankiisa ka ciyaartay loo yaqaano Hashtag. intaasina waxay ahaayeen ciyaartooyda kusoo biiray Big Six iyo kuwii isaga tagay tan iyo mar dambe aan iska kula kulmi doonana.